السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan. waa maalinimo talaadaha bisha December ay ku beegan tahay 28 sanada 2021. qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah saraakiil taageersan madaxweyne Farmaajo oo ku shiraya Villa Soomaaliya iyo xarunta gobolka Banaadir. dowladda Mareykanka oo hanjabaad culus u dirtay madaxweyne Farmaajo kana digtay qorshe culus oo socda. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo si kulul uga hadlay arrimaha ka taagan magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. soo dhawaada. aan ku bilownay waxaa xalay Villa Soomaaliya ka dhacay shir u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xasan Jaamici. mid ka mid ah irdaha madaxtooyada ayaa laga sii daayay sarkaal ka tirsan saraakiisha xoogga dalka ee ka dagaalanta Shabeellada Hoose. dhanka kale, guriga gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku yaala nawaaxiga madaxtooyada waxaa shir ku yeeshay sarkaal sare oo lagu magacaabo Cismaan Xaadoole iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba saraakiil kale. kulamo fara badan oo si gooni ah iyo waliba si guudba u dhacaya ayaa ka socda xafiisyada dowladda, kuwa taabacsan madaxweyne Farmaajo iyo waliba kuwa taabacsan ra'iisul wasaaraha. waxaana halkaasi lagu kala qaadanayaa saraakiisha ugu sarreysa ee dalka. waa dhanka ciidanka oo la rabo in awood loo isticmaalo. waxaana magaalada Muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan iyo cabsi soo food saartay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada, iyadoo meelaha qaar ay ku sugan yihiin ciidamo ka yimid Shabeellada Hoose isla markaana magaalada ku soo galay. waa sida ay sheegeen inay caawiyaan ama ay difaacaan ra'iisul wasaare Roble, waxaana ay ku hanjabeen inay madaxweyne Farmaajo ka saari doonaan Villa Soomaaliya. ciidamadan oo la magac baxay Badbaado Qaran ayaa horey u soo galay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla sanadkan, waxaana halkaasi ay ka abuureen cabsi xooggan iyo waliba meelaha qaarna ay isku horimaad ku dhaxmareen ciidamada booliiska iyo waliba kuwa militariga ee dowladda federaalka dalka Soomaaliya. haba yaraatee ma jiraan wax waanwaana oo haatan socota, waxaana la filayaa in xaaladdu ay ka sii darto haddii aan la qaboojin. inkastoo xaaladda magaalada Muqdisho ay haatan degan tahay isla markaana aanay jirin wax bad ah oo ka socota, ayaa meelaha qaar cabsi xooggan laga dareemayaa iyadoo ciidamo iska soo horjeeda ay hor fadhiyaan. agaarka madaxtooyada ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo sheegay inay taabacsan yihiin ra'iisul wasaare Roble isla markaana ay dhankiisa amar ka sugayaan haddii uu amar siiyana ay weerar ku qaadayaan madaxtooyada. madaxtooyadan waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo iyagana ka socda dhanka dowladda, waa dhanka madaxweynaha oo halkaasi iyagana awalba joogay oo difaacayay madaxtooyada. waxaana yaraaday dhaqdhaqaaqii dadweynaha ee meelaha ay fadhiyaan ciidamadan iska soo horjeeda oo mar kasta xabad ay dhexdooda ka qarxi karayso. dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa goordhow qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay xaaladda Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay taageerayso dadaalada nabadeed iyo doorashada ra'iisul wasaare Roble oo wado. Mareykanka ayaa xusay in tallaabo ay ka qaadi doonaan cid kasta oo carqaladeynaysa doorashada Soomaaliya, isla markaana laga waantoobo wax walba oo keeni karaya dagaal ka dhaca magaalada Muqdisho. qoraalka ayaa lagu yidhi Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu tallaabo ka qaado kuwa carqalada ku ah wadada nabadda ee Soomaaliya. isku dayga joojinta Maxamed Xuseen Roble qorshaha uu wada ee uu doorasho raba inuu ku gaadho waa wax laga naxo, waana taageeraynaa dadaalkiisa ku aadan doorashada oo dhacda waliba si degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. waxaa sidoo kale lagu yidhi qoraalkan dhammaan dhinacyada waa inay ka waantoobaan ficilada iyo hadallada kicinta ah. hadalkan ayaa guul u ah ra'iisul wasaare Roble iyadoo uu dhabarjab ku yahay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inta badan beesha caalamka ayaa u muuqata inay taageero u muujinayso ra'iisul wasaare Roble oo haatan waday doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya. waxaana ra'iisul wasaare Roble oo horey u sheegay in madaxweynuhu uu rabo inuu doorashada farageliyo isla markaana uu sameeyo wadooyinkii uu ku soo bixi lahaa. beesha caalamkuna waxaa la filayaa in halkaasi ay geeska ka gelisay madaxweyne Farmaajo, iyagoo u arkaya in madaxweyne Farmaajo uu yahay musharax ka tirsan musharaxiinta haatan u tartamaysa xilka, isla markaana doonaya inuu maroorsado doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya.
khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa haatan maraya meeshii ugu sarreysay iyadoo aanay jirin wax dhexdhexaadin ah oo laga wado dhexdooda. dhinac kastana uu ku adkeysanayo in dhinaca kale uu khaldan yahay, isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in madaxweynuhu aanu lahayn wax awood ah oo uu ku sii maamuli karayo hay'adaha dowladda. madaxweynaha laftirkiisuna uu horeyba u sheegay in ra'iisul wasaaraha uu shaqada ka joojiyay sababo la xiriira xilgadusho la'aan iyo weliba isaga oo doorashadii dhinac kale u wareejiyay. warar hoose oo na soo gaadhay ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu qorsheynayo in dalka uu magacaabo ra'iisul wasaare kale oo gaarsiiya doorashooyinka, isla markaana ay madaxweynaha isku dhow yihiin. halka taasi hadday dhacdo ay noqonayso caqabad hor leh oo ku soo kordha magaalada Muqdisho iyo weliba guud ahaanba dalka Soomaaliya, oo halkaasi qalalaasa iyo weliba dhibaatooyin dhexda ka geli karaya. doorashada lagu muransan yahay ee golaha shacabka ee aqalka hoose ayaa weli socota, iyadoo maanta ay ka bilowdeen qaar ka mid ah kuraasta Jubbaland magaalada Kismaayo, oo halkaasi la filayo in lagu doorto qaar ka mid ah kuraasta halkaasi laga soo doorto ee golaha shacabka. haatan aan aadno Somaliland iyo weliba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweyne Biixi ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu qorshaystay inuu Soomaaliya burburiyo. waxa kale oo uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyo qalalaasihii Boosaaso ka dhacay. madaxweyne Biixi ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo aanu waxba ka baran waqtigii ay ciidamadu soo galeen magaalada Muqdisho, isla markaana jahwareerka siyaasadeed uu ka jiray magaaladaasi. waxa uu sheegay in haatanna ay madaxa iskula jiraan ra'iisul wasaarahan haatan jooga. ninka xamar ka taliya ee muddo dhaafka ku jooga iyo ra'iisul wasaarihiisa waxay isku khilaafeen maamulkii bishii Abriil ee sanadkan. ciidamo ayaa weeraray oo madaxtooyadii weerar ku qaaday oo isku wareejiyay, waxayna ila tahay in madaxweynaha xamar jooga kuna waantoobaynin waxa ka dhacaya agagaarkiisa, isla markaana ay xaaladdu taagan tahay car iyo car, ayuu yidhi madaxweyne Biixi oo ka hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa sheegay in dhaawacyadii qalalaasihii Boosaaso la soo gaarsiiyay isbitaalka Hargeysa, isagoo Farmaajo ku eedeeyay mas'uuliyadda dhibaatada. waxaana uu yidhi madaxweyne Biixi dabkii uu ka shiday Boosaaso madaxweynaha xamar jooga dhibtiisa Hargeysa ayay soo gaadhay, waxaana cisbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa lagu dabiibayaa dhaawacii ka yimid magaalada Boosaaso ee ay ka soo gaadheen dagaaladii halkaasi ka dhacay. qaxooti 10,000 ah oo soo qaxay ayaa gobolka Sanaag ku sugan, ayuu yidhi madaxweyne Biixi. madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inaan cidina ka dambeyn. haddii aad damacday cidna iga dambeyn mayso oo meesha waan burburinayaa, kuu suurtageli mayso. waxaana kula talinayaa dadka Muqdisho jooga inay ka tashadaan siday dhibta isaga bixin lahaayeen, waayo annagana wayna soo gaadhaysaa, ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobaynaa guud ahaanba wararkiina soo gaadhay. intaan ku kulmayno warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.